Okay, asxaabay waxaan sameynaynaa mar haddeen aragnay fiidiyoga quruxda badan website-ka quruxda badan ee aragnay waxaynu sugnaaba oo labadeena website waxaan sameynaynaa intaynaa GitHub ku push garaynin waxaanu sameynaynaa aynu aragno labadan website si aynu u kala dhaxaysiino maxaa la yidhaahdaa aynu isugu xidhno macnihii page 1 iyo page 2 bayn ka dhiganaa website-ku navigation buu yeelan doonaa goordhow navbar badan baad arki doontaa oo aynu isticmaalno oo kadibna website-ku kollaba markaad mid clicks idhaahdo uu page kale ku geynayo ama website kale kugu xidhayo saa darteed bal aan isku yara xidhno my blog waxaan u imanayaa blog where's that blog 1 html kanaan u imanayaa let's say ama kaygana kale kanaa qurux badan labada aan idhaahdo kan kadibna filekan aan ku xidhno blog 1 kan okay so read more kan oo kale waxaan odhanaynaa hareefkan let's say haynagu geeyo kaliyaata in blog1.html okay so readme-ka ama let's say blog 1 taan ka dhigo blog 1 ama read more baan ka saaray marka blog 1 baan idhi sida blog 1 waan idhi marka nimka click siiyo laazim waa ina page-kaygan kale ku noqdaa okay so kan laftiisa category-ga markaan sidebar-ka u imaado let's say blog 1 html kan markaan u imaado kan waxaan odhanayaa css trigis kan aan ku daro href kan aan ku daro waxaan ku imanayaa wuxuu noqonayaa index.html okay so index.html grade bade css trigs grade okay markaan click siiyo waa inuu kanigu tuuraa kanna haddaan ama go back baan odhan karaa basiit marka labadeena website way isku xidhayiin haddaba aynu nimaadno aynu bush garayno oo aynu ku live ka dhigno website-keena waa kuu sheegay markaad doonayso inaad website-kaaga aad publicly ka dhigto oo domainka iyo waxaase loogu xidhayo waa isla gaari doonaa laakiinse meelaad ku hoos garaysaad u baahan tahay okay so imika GitHub baynu isticmaalanaa so already mid kale waanu ku push garaynay adigu laftaada exercise ka dhigo oo bal arag inaad iska ugu push garayso GitHub ood ku hoos garayso website-kaaga okay so try yourself inaad adigu mararka qaar istijaabisaa waa muhiim okay marka new project baan leeyahay so new project markaan idhaahdo waxaan u bixinayaa let's say grid layout let's say grid layout website okay let's say website marka intaa idhaa description waan u samayn kartaa html plus css baan odhan karaa waxaa lagu qoray html css public baan ka dhigay readme file baan ku darsanayaa waayo haddaan comment iyo wax doonay inaan ku darsado ama read filekaas ayaan haysanayaa create repository baan odhanayaa okay so repository-geeni markay ramaysanto so guys waan arkaa repository-geygu waa kan so imika add file baan odhanayaa okay ama upload fileskanaan dooranayaa see markaan idhaahdo waa inaan fileskaygii ku drag drop gareeyaa okay so juice fileskii markaan idhaahdo ayar basiit isaga ay geynayaa waxaa loo yaqaano directory-geena halka ay ku jirto let's say directory-ga halkay ku jirto desktop-kanaan imanayaa web development course buu ahaa soo maha web development course baan imi okay blogskan amadhe okay so ii soo qaad waxaan oo dhan open with baan odhanayaa okay see I think sawiraantaydii may soo raacay maa jeclay I think sawiraantii ma soo raacay saa darteed sawiraanta laftooda isagana drag and drop baan ku sameynayaa see web development course-ka ayar baan u imanayaa blogskanaa soo qaadanayaa si imageskaygu waa kuwan so imageskii ayar baan odhanayaa lesaf drag and drop baan ku sameynayaa si ayar ma filekana soo qaadayaa si cut baan idhi lesay waa soo jiidayaa kadibna anigaa ku drop gareeyay okay so drag and drop easy guys marka waanu haysanaa sawiraanteeniina blog 1kiina waan haysanaa indexkiina waan haysanaa waa kuu sheegay website kastaa si aanu u crash garoobin waa inuu index lahaadaa the more website-kaagu uu faylashiisu badan yihiin laakiinse waa inuu page automatically uu ku rangaroobayo index waa inuu lahaadaa sax waan isla faanayntaa commit change baan idhi so markaa wuu process garaynayaa faylasheenii second bay qaadanaysaa guys already wuu process gareeyey markuu intaa process gareeyo kadibna settingkaan u imanayaa
si waa basiid. Okay, main waa branchkeena aan bedelayaa. Let's say branchkeena waxaaba ka dhigayaa mainka. Halkan iska soo dhaaf pageskan imanayaa. Let's say main branchka ayaan doonanayaa. Okay, so waa branchkii waa inay main branch lahaadaa. Indexkeygii baan helayaa. Okay, root directorygii buu helayaa. Okay, waan save garaynayaa. Marka intaa save gareeyo waa inaan link helaa. Xagga sare aan linkiga helaa. صح markaan refresh baan odhanayaa pagekaaga refresh garee. Okay, markaad pagekaaga saa u refresh garayso laazim waa inaad ahaataa oo okay guys hadda bal aynu nimaadno branchkii waan haysanaa. Okay, haddana again baan odhanaya refresh baan idhi. main directorygii waan haystaa. waxaan ku noqonayaa let's say github page. Nope, qaybtan maaha deploying from branch. Okay, save baan idhi. markaad intaas save idhaahdo so let's say collaboration kana waa aragnay. grid layout kana ku noqonayaa team pagekeygii waan ku noqonayaa. si pagekeygii markaan ku noqdo kadibna waxaan u imanayaa settingka. let's say pageskii baan ku noqday. okay, waa kaa soo galay ma aragtaa minute buu u baahnaa in yar sug ha ka degdegin. marka kaa soo galay https ka waad aragtaa. https buu u sameeyey fail academia. marka kadibna markuu intaa kuu sameeyo grid layout website click baan siinayaa. okay, haddaan imika click siiyo laazim waa inuu websitekeeni rangareeyaa wixii aynu haysanay oo dhan. okay, so basiid weeye guys. intaas mar hadduud aragto already domain waan helaya. imika domain buu leeyahay. si haddaa domainkeyga aan block one na yidhaahdo automatically wuxuu igu tuurayaa kii kale. okay, so haddaan css trickskan ku dhufto wuxuu igu tuurayaa kii kale. maxaa ka qurux badan haddaan go back idhaahdo kanuu igu tuuray. haddaan kii kale u imaado kanuu igu tuuray. already domainkii waan haysanaa. real domainiska marka laga iibsanaya sida godaddy oo kale namejeeb oo kale markii laga iibsado lagu push gareeyna insha Allah waa isla gaari doonaa. laakiin imika github baan ku push gareynay aan ku hoos gareynana. so dee waxa ku dhahay mar haddaad halkaas soo gaadhay ood websiteka quruxda badan ila dhistay hambalyaan ku leeyahay. marka waxa kale inu soconaaba waa inaynu sii gudubno oo ina kolba yara advance in yar ku darno step by step. wax walba ha ku degdegin. aqoonta mar laguma wada barto. waxay u baahantahay mar walba technical inaad practically badan aad samayso. wax mar aad u technical yahay inaad mar walba practiceka yara zaa'idiso unbaa muhiima. the more project aad qorto the more wixii aad og tahay ood fahmayso. okay, khayr bay isku ognahay guys. videoga intaan ku joojinayaa. dee hambalyaan ku leeyahay mar haddaad push garaysay ood websitekaagii hoos garaynasaba. okay, khayr bay isku ognahay.